بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي إذا شرفت له كحرا كوبتا ليبن إن دوشلان وايها جرمالكا وإنو إن بدن كجهد الله وآخرية الدنبا إنه لفائده مع المهن وإنو كلام مغنين وقت دير كدبنا إلهي سبحانه وتعالى وحق الدري إنو مر لباد dib isugu soo noqono waxaan rajeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajeynayaa inay casharadu ay sidoodii inoogu socon doonaan ay taxana inoo ahaan doonaan iyaga oo aad dareemi kartaan wadciga xaaladda jarmalka lagu jiro iyo qofku inuu magaranaysaa shaqo iyo saaxiibul ciyaal iyo howlahoo dhan waad fahmi kartaan baan u malanayaa marka iyagoo walaaluhu si khaasa iyo si guudba iila soo hadlayay qaarna kommentiyada ay igu soo qorayeen kadib baa waxaan go'aansaday in mar labaad aynu dib hawada isugu aragno maanta waxaynu ka hadlaynaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ka raali noqdo waxa loo yaqaano taqaatike sona waddada soddonka ama jidka soddonka horena waan uga hadlay iminkana iyada oo aan idin tusi doono sir badan oo ku jirta taqaatike soonaha ayaan idin tusi doonaa insha allahu in badan oo idinka idin ka mida waxaan filayaa inay ku khaldami karaan haddii ay arkaan arrinta ayada ah goormu bilowdaa goormaase laga dhammaadaa muxuuse u kala baxaa maxaase ku garan karaa ayaynu ka hadlaynaa su-aalahaas oo dhan baynu ka jawaabaynaa taqaatike sone waxaa la bilaabay 1983 ayaa la bilaabay waxaana filayaa in badan oo ka mida innaga xilligaas inaynu dhalanba qaarkoodna ay markaaba dhasheen waa sharci aada iyo aada u daaweyn waxaa laga helaa inta badan oo uu ku yimaadaa meelaha vongibiidka dadku ay degan yihiin ayaa laga helaa inta badan waxaana loogu talagalay dadku in ay ku noolaadaan meesha iyada ah bilaa cabsi iyo bilaa buuq labadaas arrimood ayaa looga dalnaya cabsi la-aan oo inay baabuurtu ay dardaraan xoogga ay u socdaan iyo buuq la-aan gaadhigu markuu xoog u socdo qaylo fara badan ayuu sameeyaa ama guux fara badan ayuu sameeyaa si markaa dadku ay ugu raaxaystaan guryahooda buuq badanna aan loo dareemin intaa kadib calaamadda ugu horeysa ee taqaatike sone waa calaamadda aada arkaysaan weeye jidka magaranaysaa soddonka ka hadlaysa calaamaddaas ayaa lagu gartaa meesha ay ku taallana waxay kuu sheegaysaa in aad soo gashay jidkii soddonka ama taqaatike sone waxa loo yaqaano ayaad soo gashay waxa ku xiga calaamadda labaad ku xigta waxa weeye in dhulka lagugu qoro oo dhulkii uu kugu qornaato taqaatike sone aad ku aragtid iyada oo islamarkaana jidkiina uu suran yahay tabeelihii ama calaamaddii muujinaysay inuu waddadu ay tahay waddadii soddonka ama jidkii soddonka calaamadda saddexaad iyadana aad ku garan karta waxaa ka mid ah calaamadda aynu sheegnay oo meelaha qaar inta lagu dhajiyo aad arki doontaan meelaha qaar inta lagu dhajiyo ay kuu sheegayaan ay ku leeyihiin waddadu waxay leedahay buuro ama magaranaysaay waxay leedahay meelo googo-an ayay leedahay haddii aada xoog u socoto gaarhigaaga wuu kaa jajabi doonaa tartiib u soco calaamadda labada buurood aad arkaysaan yaryariska loo sameeyey waa tuurtuurihii waddada ku yaalay weeye taa haddaad aragtana macnaheedu waxay ka dhigan tahay bartaa markaad gaadhid dhibaato ayaa ka jirta wadeed ama dhismo ayaa ka socda oo waddadu way khariban tahay dhismayaan odhan sorry waddadu way hallaysantahay iska ilaali meesha ugu badan ay dadku inta badan ay ku khaldamaan waa halkan iyada ah weeye waddadan hadda aad arkaysaan waxaa lagu yidhi iminka taqaatike sone keliya u arki karaa qofka bilowga ah ma arki kara waxyaabahan ka hooseeya oo kale taqaatike sone marka laga yimaado hoosta hoose waxaa ku qoran montag bis freitag 7 subaxnimo ama 1 saac subaxnimo ilaa iyo 17 galabnimo ayay shaqaynaysaa calaamadan weeye adigoo imtixaan ku jira oo isla goroorinaya gaarigii haddii intaad ku timaado iyadoo welibana xilli dambe ay tahay
toddobiyo toban ka dambayso aad gaariga soo gaabiso oo ku yidhahdo faaqun baad ugu kaxaysatay taqaajig inaad tidhaahid baa laga yaabaa waxaynu ku jirnaa zoonihii taqaajigka ayaynu ku jirnaa markaa waa khalad waxay bilaabatay 7 subaxnimo bilaabanaysaa waxayna dhammaanaysaa 17 galabnimo ama 12 saac saad arkaysaan taa markaynu ka gudubno talabaad aynu u nimaadno iyaduna waxay kuu tilmaamaysaa ay kuu sheegaysaa 10 habeenimo ama 4 saac oo habeenimo ilaa iyo subaxii 6 subaxnimo 12 subaxnimo wadada ayay xilligaas ayay taqaadika soone bilaabanaysaa inta ka horeysase waa wada caadiya weeye wada caadiyana goormay noqonaysaa waan nidhi xilliga hore u soo sheegnay taqaadika soone waan sheegi doonaa dib baan ka sheegi doonaa waa kaasa haddii markaa imtixaan aad ku jirtid 7 subaxnimo ama 6 waxaan u jeedaa 8 ama 9 ama 10 barqadii lagu soo mariyo meeshaas oo calaamadda kaliya soonka ay ishaada ku dhacdo oo iska gaabisid macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa dhacday waayo lama socotid wadciga meesha ka socda ayay ku oranayaan waana sida ay u badan tahay weeye waxaan u soo doortay waxay ka mid tahay in aad ila fahantaan calaamadan kale iyadana waxaa lagu yidhi wadadu waa 30 laakiin waa goorma waa marka ay wadadu ay tahay naas markay tahay ay qoyan tahay ama roob ku da'ay ama si kaleba ay u qoydo haddii doonto haddii markaa wadadu ay qoyan tahay oo wada qoyan ay tahay roob ku da'ay macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxaa bilowday 30 ayaa bilowday haddii adoo iska socdo caadiga soo mariyo macallinku oo 30 gaariga ka dhigto waxa weeye waa hawshaad way dhamaatay hadhowna waxa laga yaabaa inaad ku muranto oo tiraahdid maxaa sidaa loo sameeyay marka 30 kaasi wuxuu bilowday lagu yiri marka ay kasto ay wadadu ay qoyan tahay waayahay 30ku goortu bilowdo waynu sheegnay calaamadda ugu horeysa ee 30ka tilmaamaysa ee hore ku soo marnay waynu ku sheegnay 30ku se goormuu dhamaadaa 30ku wuxuu dhamaanayaa calaamadaas cad aad aragtaan iminka marka ay timid ayuu dhamaaday 30kii waa laga baxay ayay ka dhigan tahay 30 haddii uu dhammaado maxaa bilaabanaya waxaa bilaabanaya si aan cabsi lahayn aad gaariga u geynaysaa 50 30 haddii uu dhammaado wadadu wax calaamadoo kale ay ku siin weydo si ma garanaysaa cabsi la'aan waxaad u geynaysaa gaarigaaga 50 30ku waynu hore u sheegayaa baan idhi dib baan ka sheegayaa baan idhi 30ku markuu dhammaado wadada 50 ayaa bilaabanaysa 50 haddii la dhammeeyana wadada automatic oo 70 ama 80 wadada lagugu soo qorina si rasmi waxa uu bilaabanaya 100 ayaa uu bilaabanaya waa inaad wadada shuruucdaas oo dhan waa inaad xifdidaan baa loo baahay ku ceeshataan 10kan iyo 10rada la mid ah 70 haddii calaamadda cad hadda arkayno waa la saaraa 70 ka la saaraa 100 ka la saaraa 130 ka la saaraa meel walba xisaabi ku qorantay waa la saaraa markuu dhamaanayo haddii saa lagu dhameeyo 70 marka la dhameeyo oo calaamadda laga saaro si rasmi waxa kugu bilaabanaya 100 baa kugu bilaabanaya haddaan wax kale lagu sheegin marka 30 hadduu dhamaado si rasmi waxa kugu bilaabanaya 50 ayaa kugu bilaabanaya 50 haddii la dhameeyana ama 70 la dhameeyana sir oo calaamad kale oo cadeynaya ama 80 ama 90 cadeynaya lagu siin waayana si rasmi waxa kugu bilaabanaya 100 baa kugu bilaabanaya wadada aynu tilmaamnay ee lagu tala galay dadku inay cabsi la'aanta iyo buuq la'aanta ay ku noolaadaan guux la'aanta ku noolaadaan haddii 30kaas aad 5 dheeraysiiso 15 euro ayuu ganaaxu ka bilowdaa haddii aad ka sii badisidna ilaa harka ugu dambayso oo 130 euro ah ayuu ganaaxu gaadhaa haddii markaa 15 euro ama 30 euro lagu ganaaxo waxay boqolkiiba ku jirtid markaa broma site-kii labadii sano ugu horeysay tijaabadaada ee lagu lahaa macnihii waxaa tahay qof hadda wadada ku cusub sida ilmo socod barad oo kale wadadaad ku cusub tahay liisankaagu inuu cusub yahay
soo barbaar baa lagu leeyahay soo barbaar haddii markaa khalad weyn aad geysato ciqaabtaadu waxay noqon kartaa in liisanka lagaa qaado kadibna laguu diro waxa loo yaqaano inaad soo baratid shuruucdii dib lagugu soo celiyo oo iskuul laguu diro iskuulkaasoo 7 cisho ama 5 cisho soconaya ilaa 500 euro ilaa 700 euro lacag ku gaaraysa lagugu ganaxo barooba ay kaaga baxdo iskuulka barooba sayidkiina dib lagugu celiyo 2 sannadood lagugu kordhiyo haddii markaa barooba sayidka lagugu kordhiyo macnaheedu liisanka xilligaad qaadatay waa sax laakiin barooba sayidka macnaheedu haddii lagugu kordhiyo waxa weeye qaali uu kugu ahaanaya waxyaabo fara badanna inaad markaa aad baratay ka hor istaagaysa sida basaska oo kale iyo waxyaabaha la halmaala inaad markaa liisankoodii ama aad sii gudubtid ay qaadatid ayaa kugu adkaanaysa laakiin liisanku mar walba wuu kuu shaqaynayaa casharkaasi waa cashar u baahan waqtigiisa iyo xilligiisa in lagaga hadlo intaa markaa waxaynu kaga gudubnay in aad la socoto calaamadda 30ku inayna mar walba ayna 30 ayna ahayn waqti loogu talagalay iyo waqti ay dhammaanaysana ay leedahay marmarka qaarna ay leedahay sida aynu soo sheegnay waddada burbursan haddii aad ku timaadid marmarka qaarna ay leedahay xilli keliya uun oo ah waddadu markay qoyan tahay aynu hore u soo sheegnay calaamadda iminka waddadu markay qoyan tahay minus oo dhan baan ka raadiyey hal meel keliya ayaan ka helay waddadaa weyne ulin cliniga ma garanaysaa ee dhinaca ka marta ee basasku ay maraan oo keliya baanhoofka kusoo dhaadhacda oo keliya ayay ku taallaa iminka calaamaddaas inta aniga ogaalkaya minus meel kale oon ku arkay ma jirto marka calaamaddaasoo kale waa unique weeye marmarka qaar inaad aragta laga yaabaa laakiin casharku cumuuman isku soo wada duuduuba wuxuu daaran yahay taqaatiga soone inayna ahayn wax feestiya oo meel iska taagan oo ay tahay xilli ay dhammaan karto xillina ay bilaaban karto marmarka qaarna ay xilli kasta ay joogto tahay sida waddada weyn ee Ranchstraße waddooyinka waaweyn nimka minus badankooda waa loo wada sameeyey oo taqaatiga soona ayaa laga dhigay in markaa aad ku taxadartid oo indhahaagu ay furnaadaan oo aad la socoto waxa waddada ka dhacaya waddadu way hadlaysaa haddii aadan hadalkeeda aadan fahmayna waxay ka dhigan tahay markaas inaad khalad weyn aad geysan karto imtixaankan aad ku dhici karto naftaadana aad halis gelin karto waxaan kusoo gabagabeynayaa khayru nnaasi anfacahum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan kooda ugu manfaca badan leh walaashayda muslimadda ah walaalkayga muslimka u dhageysanayo walaalahaaga mid manfac u leh noqo dadkana wax kusoo kordhiyo ha noqonin mid dadka wax u dhima ama dadka dhibaateeya ama dadka waxa ay haystaan ka kala daadiya ha noqonin ama dadka niyadda ka dila noqo mid dadka khayrka u sheega dadka niyadda u dhisa dadka u sheega in ay qaban karaan wax kaste aad iyo aad baan kuu salaamayaa casharkan haddii aad wuxuun ka faa'iiday walaalahaaga kale aad isleedahay waxbay ka faa'iidi doonaan la sii wadaag naguna soo biir insha allahu si casharada iyo duruusta aynu joogtada u bixinayno aad u noqoto mid la socdo mar walba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu